maanta oo kalena hadalka waxaan ka bilaabaa ilaahu aqoonna ha igu cadaabin eexna ha iiga tegin shalay waxaa is doortay 5 nin oo komishankii cusbaa ka mid ah waxaanay u doorteen guddoomiye shantoodu cabdirashiid riyaraac oo sidii anigu aan hore u sheegay siyaasi caan ah oo la wada yaqaan oo xisbi gaara ku suntan ah cabdirashiid riyaraac anigu waxaan u arkaa miino loo soo xambaariyey madaxweynaha ka u soo xambaariyeyna ma ahayn nin ka talinayey wanaagga iyo sharafta iyo karaamada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi buurmadow ayaa ka hadlay boqor buurmadow maalintii hore waa ay weydiiseen jawaabtiisa waan ka muqurtay laakiin maanta ka muquran maayo wuxuu yidhi sankaa idiin daloola in cabdirashiid riyaraac la aqbalo waanu ogaa in guddoomiyahana dee markaa uu noqonayo haddaba anugu mid quri baan u sheegayaa waddanka somalilan la yidhaah ma dhacayso commission uu hoggaaminayo cabdirashiid riyaraac oo dalkan doorasho ka qabanaya ninka sanka kaga mudaya waxow waa adiga iyo dee itaalka waayo dadka tan ka soo teliyey kamay talinayn ma aha wanaagga muuse bixuun ee kamay talinayn midnimada iyo wadajirka dadka somalilan oo aynu ognahay 2 sannadood ee ugu dambeeyey wax sii kala socday mooyaane inaanay jirin wax isu soo socday arrintan haddii ay sidaa uu buurmadow yidhi noqoto taasi macnaheedu wuxuu noqonayaa in guushii kulmiye iyo guushii muuse biixi uu madaxweynaha ku noqday ay gebi ahaanba noqoto bilowgii dhammaadka somalilan oo aanu jiri doonin madaxweyne somalilan uga dambeeya muuse biixi